laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego wadaadana maaha diinna shaqo kuma leh waa koox maafiya ah oo mara weyn oo diin soo hagoogatay waaye maradiyan annaga inaan ka qaadna rabnaa dadku inay wada arkaan maafiyanimadooda ee taabanayso oo taariikhi ah u tahay waa ka mahad celinayaa soo dhaweynta qaaliga ah ee degmada Maxaas iyo dadka reer Maxaaseed ay maanta igu soo dhaweeyeen degmadoodii Maxaas halgankan maanta socda ee dagaalka shabaab iyo khawaarijta lagula jiro ka hor ayay magaalo ahaan ayadu ay xor ahayd horta baahida airborka waxa keentay meeshii yarado Maxaas aheedo go'needo jasiiradda aheedo meel kale looga imaan karo aanay jirin in cirka looga soo degay moogi maanta horta Maxaas meeshii ma waata oo madaxweynuhu ku sheegayo oo inta dad ka timaadii habeen madow hadaad balweyne ka soo baxday iyo subax dad ka soo baxday inta ka dhaxle aad Maxaas imaanayso horta baahidii shalay Maxaas ay qabtay maanta baahiye ka duwan ay qabtaa sida aniga ay ila tahay eelka iyo dhakhtarka iyo iskuulka iyo howlahaas iyo howlo kale ka waaweyn iyo dhismaha maamulka degmada iyo howlo aad u waaweyn socdo wasiirka arrimaha gudaha waa kii hadda halkan uga dhawaaqay Maxaas degmada ugu horeysay ee xoreynta kadib xarunta maamulka iyo maxaan ku raadayay dhismihii dawladda loo dhisay inay ayada koow horta ay tahay degmooyinka kale ama hadda laga xoreeyo ama horay xorha u ahaadaane dalka oo dhan insha Allah taala wax siman oo ay ka wada siman yihiin oo marka la xiriira ayaa dawladdu ay ka qaban doontaa fayskan dagaalka markaan ka soo jeesano waana si bilaabaynaayo meeshii hadba xorowdo wixii loo heli karo waa geenaynaa airborka aad codsateen Maxaas waa loo sameeynaa hadii ay laakiin waxaan idinka rabaa waa baahi dhab oo jirto oo dareenkeedu idinku weyn yahay sida mas'uuliyiintii madaxdii dadka hadlay ay u wada celceliyeen aan dareemayaa laakiin dhameystirka shabaab yaa asigana muhiimad kale oo weyn noole geedka kurdada la yiraahdo aad kor intaad ka xeerto aad maxaa beerta intaad kor geedka aad ka fasho aad ka tagto xays yarna biri u yimaado kurda iyo meeshiisa kala ahaanaya shabaab waa kurda jirida bixin u baahan yahay jirida bixintiisa reer Maxaas ciidan markay joogtana waa yaqaaniin عقيدة ما كي جوكتنا كهرب أنت أسوس شيئين شباب إسكعلية من كان عقيدة الإسلام كدين الإسلام كقيمها بدن أي نوبصو قبضين لكن وحن ربعنا ندي شيء وذا دنا معها دين الشقة كملة وكوح مافيا أو مروين أو دين أسوها جوكتي واي مرضي يعني عندنا كقارنا رمادتكم إنه وضع أركان مافيا لمدود برعد جدك تاجن قاطع الطريقة أي دينتو كهذا الشيء وحي كدويهن مرة نفتيان أمانك هيرين مالكيان أمانك هيرين ضدكيان أمانك هيرين شرفتي إكرامتي عزيان أمانك هيرين دينتيان أمانك هيرين نمانكو نحط المامي كراني وان امتحان إلهي ودنبيلي ورون قرنين لو بقودايه هذا الإلهي وأن نقول والحمد لله كتاب كيسنا قعنت بيدك تنقوها يسنا نمك كبين شيء يعني واسكت عيننا هذه قال كان أي صوم مرجت الدولة دين تلقى إلاليه وأيضا دين تلقى الدفاع وكسو قدومنا ما أنت الدولة دين تله أو هرمرت هذا يقرح هذا يدفاع إلى كإلالي الصو محنكر وحن خوارج أي وطن وقربناك looga soo darsanay aan diinka ahayn dawladda dadka soo dawlad ilaaliso amni u sugto soo u baahan diintuna intaas oo kale u baahan tahay hadii kale shaydaan kasta meel inta ka soo galo warxan loo joogin ku darsana lagu darsamayo ogolaameen ummad muslimiin ah sunniyiin ah oo sunnada rasuulka kaleey salaatu wasalaam ku toosan oo maxaan ku shaafiiciyiin ah oo maxaan ku raadey ahlu sunna wal jamaa ahana
leexanayno waa xoojinayna wixii banaanka laga yimid iyo wixii meelaha laga soo dhoobay shalay iyo daraad yimideen abta ummadan seef laguma islaamin shalay xoog laguma islaamin qoorka gooyo laguma islaamin faham ilaahay uu siiyay rabitaankooda ku islaamay maantana diinta intaas ay ku haystaan boqol muslimiin ku yihiin diintan ku qasbaanay kala intuu ka yimid kuma naasar ka horeeyay sidaas kun sano ka horeeyay sidaas ahaayeen حيث ما أنت دين تلو خصبة أو لو كين أيو خصبة ما أنت لكين أيو كل سنة تي أي سوها يستوي كل شيء كل من عين دين تنا إلهي من عدي سواي وحيرا أور إلهي من عيستي كمتها وما أقولون إن محاكم هذا الظلم يقولون ما الله استعمار توقف الناس أن كقرنا مركا خوارجتا علماتي دمانتي حديث الرسول عليه الصلاه والسلام يصفون كود يسدوا تمام واتقان لغما آيات اخص بدنا لغما حديث دليل شبدنا لكن حيتره مال حنا إلهيين او وحي كلو دينتو اي إراليسay oo maxaan ku iraadayo dhan ay muxuu ahay dhinac mareen ku dheerayaan karaamada qofka iraalmada maalkiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa waxyaabaha ugu horeeyo asaasiyaadka diinta hal ilaaliyo ay tiri kamid tahay qofka muslimkaana loo baneeyay inuu u dhinto asoo daafacay